بسم الله الرحمن الرحيم مقعي وفرحان حسن كسو جيدا بيشا دارود gaar ahaan beesha dhulbaande gaar ahaan beesha Axmed Garaad waxaan ku xidhanahay jeelka weyn ee Hargeysa halkaas oo muddo 9 sanadood aan ku xidhanahay muddada 9 sanadood waxaan u xidhanahay mag 9 sanadood beeshiida waan la hadlayay Axmed Garaad magtaana inay iga bixiyaan waan ka waayay oo iga bixin waayeen sidaa darteed markaan 9 sano oo kamid ah umrigeyga aan ku dhameystay jeelka waxaan go'aansaday inaan fariinteyda gaarsiiyo dhammaan beelweynta daarood meel kastoo joogaan dal iyo dibadba madaxdooda iyo maxaan ku raahdaa madaxyaashoodaba sidaa darteed waxaan ka codsanayaa beesha daarood cid kastoo hadalkayga gaaro oo kamid ah inay ii soo gurmadaan magtaana iga bixiyaan waxaan ahay aabe 4 caruur leh qayb kamid ah caruurtooda waxay dhasheen intaan jeelka ku jiray mana aan nasiibna waanan helin inaanu is aragno oo midowno nasiib maan helin sidaa darteed mudane iyo marwaba beesha beelweynta daarood waxaan ka codsanayaa inay magta iga soo bixiyaan si gaarana waxa weeye waxaan leeyahay mudane iyo marwaba waxaan la hadlayaa magaca daaroode muddo badan nin xidhan baan oo mooralkii jabaye manfac ma laha aakhiro dad yahow magaca reereeda maanta aan inii baahanahay mudanayaalowe madoobiyo kale dani ku tahay waa u macjuurahay mustafiyo farmaajan u diri muusana hadale aad baan idin salaamayaa maadaama aan si public idin ka soo codsaday idinkoo beelweyntii daarooda wax aad u yar oo maga waxaan idinka rajaynayaa inaad meesha igu caabayn publicaas layga dhageystay magtaana aad si degdeg iga soo bixisaan oo bilaawi tawfiiq nambarka wax lagu soo hagaajinaya waxa weeyaan inaan qaraabanahay ilaa Cabdirashiid xaaji samatar culujoog nambarkiisuna yahay 2522 6 9 hal 41 waa 2522 6 3 6 9 41 waa 2522 6 3 6 9 41 waa billahi tawfiiq. Assalaamu calaykum.